anuu hawshan toosu gudagelayahay qodobka hore wuxuu ku saabsan yahay soo gudbinta liisaskii ergooyinka 51 ahaa ee beel waliba lahayd ee xildhibaan kasta 51 qof baa dooranaysa xildhibaan kasta haddii bidkeeda leeyahay laga rabo muddadii loo qoonday in la soo gudbiyo liisaska waxay ahayd 13 bisha tan ay ku ekayd beelaha qaar soo gudbiyay way jiraan waa mahadsan yihiin waa dadaaleen beelaha aan soo gudbin waxaa loo sheegayaa in ay haystaan waqti dambe oo ilaa 16 ah baanu haddii bidkeeda leeyahay bisha 16 inay qolo waliba soo gudbaan liisaskii masalan hadday 3 kursi beeshaasi leedahay maaha micnaheedu koob iyo konton qof bay soo gudbinayaan waxay soo gudbinayaan kursi kasta 51 qof jifida hoose ee leh ayaa kursi kasta 51 qof oo doorta laga soo gudbinaya marka waxaanu markale ku celeelaa oo codsanayna oo u sheegayna haddii bidkeeda leeyahay oday dhaqameedyada qaabilsanaa inay soo gudbiyaan maxay ahayd liisaska 51 in ayan dib uga dhicin 16 bisha tan hadday dib uga dhacaan waxa weeyaan doorashadii waxay soconaysaa beeshaas oo kursigeedii maqan yahay doorashadii soconaysaa waxay soconaysaa muddada ay soconaysaa waxa weeyaan waa ilaa iyo 23 waa 13 ilaa 23 haddii alla kuu sama ogol yahay muxuu ahaa xilliga qabashadu haddaad istiraado waqti baad haysataa dib u dhigo ugu hubay haddii alla kuu sama ogol yahay waxbaa ka khaldami kara foomamkaaga iyo waxa aad soo bixisay qof walba hore u soo mar si aad u hayso chance haddii wax ka khaldaman aad dib ugu saxdo haddii 24 bisha waxa codayntii baa bilaabmaysa 24 bisha waxa bilaabmaysa codayntii haddaad 23 la timaado oo wax ka khaldamaan way ku dhaafaysaa codayntii iman kari maysid markaa waa inuu muwaadin Soomaaliya yahay waa inuu dhimirkiisu dhan yahay waa in da'diisu ayaan ka yaraan 25 sano waa inuu haysto ugu yaraan shahaadada dugsiga sare ama waayo aragnimo 12 sano ah oo u dhiganta inaan xuquuqdiisa muwaadinimo go'aan maxkamadeed lagaga hakin 5 sano ee u dambeysay waa inuu ka mid yahay beelaha kursiga u tartamaya iskale beesha iskale kursiga waa inuu qof waliba haddii bidkii leeyahay beesha ka tirsan yahay waa inuu saxeexo xeer anshax murashaxa abaa jira foom ah waa inuu foomkaas saxeexo oo laga rabo inuu foomkaas saxeexo siga musharaxa inuu soo gudbiyo waqtiga loo qabtay